The Star oo kamid ah wargeysyada ugu caansan ee dalka Kenya ayaa qoray qorshaha ay dowladda Soomaaliya damacsan tahay oo ku aadan sidii ciidamada Kenya looga saari lahaa gudaha dalka Soomaaliya iyadoo qorshahaasi ay taageerayaan dalal dhowr ah. Wargeyska ayaa sheegay in heshiis dhexgeesood ah oo dhexmaray Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea oo ahaa sidii ciidamo ka socda dalalkaasi oo aan qaybta ka ahayn waajibaadka AMISOM loo keeni lahaa gudaha dalka Soomaaliya. The Star ayaa yiri madaxweyne Farmaajo si cad uma sheegin inuu ka xun yahay Kenya, balse qaar ka mid ah warbaahinta ayaa qoray in saraakiisha sarsare ay wada hadallo kula jiraan dalalka Turkiga, Qatar, Itoobiya iyo Eritrea si ay u taageeraan dhaqaalahooda military si Jubbaland looga wareego ciidamada Kenya. Fahad Yaasiin ayaa hogaaminaya wada xaajoodka sida wargeyska Star uu yiri. Fahad Yaasiin waa madaxa sirdoonka Soomaaliya ayaa hogaaminaya wada xaajoodka kooxda. waxa uu haystaa baasaboorka Kenya. Laamaha amniga waxa ay sheegeen inuu u adeegsado si uu u kala safro dalalka caalamka. Dagaalka dhanka kheyraadka ayaa ay wadaan hogaamiyaasha Soomaaliya ayaa ka dhigan in Qatar ay soo wajahdo danaha Kenya iyadoo baarlamaanka Soomaaliya uu gadaal ka riixayo sidii ciidamada Kenya looga saari lahaa gudaha dalka Soomaaliya. Maamulka Farmaajo waxa ay doonayaan in hoos loo dhigo AMISOM joogitaankeeda dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Jubbaland. Wararku waxa ay sheegeen madaxweyne Farmaajo uu doonayo in Eritrea iyo Itoobiya soo galaan Soomaaliya iyadoo ay jirto heshiis labada dhinac oo banaanka ka waajibaadka AMISOM ayuu yiri wargeyska. Dhaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa sii xoogeysanaya iyadoo Kenya ay doonayso inay dhul badeedka lagu muransan yahay ay Soomaaliya leedahay la wareegto ka hor go'aanka maxkamadda Hague ee la filayo inay Kenya ku guuldareysato.